asxaabtayda qaaliga waa idin salaamay. caawa waxaan idin hayaa sheeko yar iyo qoslis. sheekada yar waxay ka dhacday Hargeysa ka dhacday. waxa dhacday hadda ka hor baa wiil waxa dhacday ka yimi xagga iyo qurbaha ayaa waxa la siiyey gabadh qaraabadooda oo markaa xagga maskaxda u yara dhiman oo dee maskaxan u dhiman doqonnimona ku darsatay ayaa la siiyey. ma garatay hablaha kuma fogaanayay ee xaqiiqadii iyo sheekadii aan ka sheekeynaya. ma garatay gabadhii wiilkii baa lagu daray dee waa qaraabad oo isagii ugu dareemay inay gabadhani si yara tahay, laakiin haddana wuxuu yiri dee maadaama qaraabada ku siisay dee ha ku diidin. ma garanaysaa gabadhii iska guursaday aduu dhowr bilood markuu la 4 bilood 3 bilood joogay buu iska soo noqday qurbihiisa iyo meelihiisa iska tagay. kadibna waxa dhacday gabadhii miday habruudaag yihiin oo og inay naagta dhiman tahay ayaa ninka soo doomaray. markaasuu ku naayaha odayga gimi markaasay tiri uu noqdayo xagga iyo qurbihiiba ku noqday. markaasuu yiri odayga kuma dhimay. markaasay tiri maxaa dhacay odayga miyuu dhimay? markaasay tiri walaal maxaa dhacay? markaasay tiri oo ilmaha yar dhali doonto misaga dhameystiray. markaasay tiri maxaa ka dhiman? markaasuu deynta kurkaba uu ka tagay inta kurkaba uu ka tagay. markaasay tiri hooge ma bila kuran aan dhalaya odaygan miyuu dhimay yahay waa inaan nimanka waca. markaasay tiri yaa naaxaba wicine iska daayo annaga waxaan dhameystiri karaynaa odaygana waxba soo kalifin inta yarna ana dhameystiri ku caawinayay bis. markaasay tiri maada dhameystiraya wad mahadsantahay walaal marka hore walaalkay baad ahayd wax walba waan kaa filay ileen waa naag dhiman waxay ka filaysay waaba inay ku jirto half circle way u jeedaa iyadu. kadibna waxa dhacday ilaa waa naag dhiman oo doqonnimona ku darsatay. ninkii hawshiisu iska bilowday. maalin wuxuu yiraahdaa sunayaashaasaan sameynaya, maalin wuxuu yiraahdaa timahan sameynaya. timihii baa la kala qaybsamay xalay timuhu way badan yihiin wax laga bixi kara maaha. caawin qadaadka dama sameynay burina food baan u sameynay maaha miyaad dhiman tahay. markaasay sidii ku waday markaas la yiraahdaa sidan indhihi baa haray sidana hadda qurxintii iyo madaxa toosintii baa hadhay iyadu miyay dhiman tahay waxaan oo dhameeyay dareemay hataa waa xaajadii ayay meetraada 6 bilood ay sidii ku wada hawsish koodi. markaas waxa dhacday markii deelmihii ilmihii waa ilmo weyn naagta dawr weyn yeelatay isna ma raadilinay. markaas uu iska daayay isna xalimay waan dhameystiri hawshi haye waxay isku dhan tahay ilmuhu waa dhameystiran bad dhalaysaa marka wastaade. markaasay tiri walaal baad mahadsan tahay mahad celin gaar ah baad iga leedahay oo iga mudan tahay wax walba waxba isaad isku daba dhigtay. markaasuu yiri markaasay tiri walaal aad baan kaaga mahadcelinay. markaasuu yiri walaal aad mudan way isku leenay wax walba iska tagay. markaas waxa dhacday inanta qabay oo qurbaha ka yimid si ilmaha geer markuu dhashay buu miisira baa dhashay. markaasuu yiri ilmaha geer hada soo arag wuxuu soo arkay ilmo yar oo bir hore lagu tirtiriyay hawadan kuma wala habday maxaa ninka 3 bilood joogay ninka 7 bilood fuushana koodi aan leeyahay kala shakiba ku jirta ninkii baa yimid. markaas ilaa waa naag dhimanay oo ku soo yimid kala hortagtay wariya miyaad dhiman tahay ilmaha yar dhamayska sirnaynay bila kurka maxaad uga tagaysaa waad doonaysaa inaan wax bila kurra dhalno la yaabo dadka adduunka ba lagu aragba. markaas la yiri oo dhalay markaas sameeyay. markaasuu yiri hindi hebel baa ku xiiqay oo habeen walba madaxa sameynay marna timaha markaas aduna ayar iska cararaysa 6 bilood ayaa kurka yar kaliya la sameynay. markaas aduna inta qaarka hore 2 bilood ku sameeyay iska tigis markaasuu yiri inuu soo weeyo yaabay madaxa soo qabsaday ayuu naayahay ilmaha yar aad leedahay hebel baa sameynayay iyo aduguba israaca iyo kii sameeyayba waqtigeeda intuu miiska u saaray kuna dhaqaaj. markaas qaraabada isku soo yaacdo maxaa dhacay maxaa sidee wuxuu jiraan. markaas la yiri kii madaxa iyo kurka sameeyay weydii markaas ninkii la soo qabtay maxaa dhacay muxuu ku hadlay ma hadal bay leedahay ninkii warqadiisii uu siiyay wuxuu yiri gabadhan anu ma qabo
ilmaha yarna ma dhalin ninkii 6 bilood saarnaa ayaa dhalay ma garatay marka qurbaha joogow iska ilaalay gabdhaha dhiman yaan laydin siin ma garatay saas ay ku dhacaysa xariif baa dama maraya hadda naagar wadankii joogta ka gursanina ma garatay gabadhiina way la joogta inay garabka kugu haysa inay laabtaada ku jiftaa ma garatay iska ilaaliya rag baa jooga saa cadho saa u joogo oo waxaan ku uri ninkuu qurbaha ka yimaado day gabadhi midhiyareedu eeganaya marka saa dhakada loogu digo nocaas baa saasuu kugu dabamaraya beri is ilaaliya marka salaamaya niyo dhammaantiin